بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. walaalayaalkan waxaan galaynaa casharka inagii noo soo socday manhajka dowladda ah qaybta luqadda carabiga ah. weliba waxaan gali doonaa hadduu ilaahay idmo leeliyaasha luqadda carabiga ah galaaska koowaad ee dugsi sare. alwaxdatu thaani cutubka labaad ayuu noo marayay. cutubka labaad hadda waxaan galaynaa addarsu thalith casharka saddexaad aqraadu shicri shicirka aqraadkiisa ayaan galaynaa. shicirka waxyaalaha loola dan leeyahay ayaa casharkii saddexaad ayaan galaynaa casharkii ugu dambeeyay cutubka labaad. marka hadduu ilaahay idmo casharkaas marka waxaan galaynaa layligiisa ayaan akhrinaynaa. hadduu ilaahay idmo layliyaashii ka soo baxay ayaa akhrin doonaa casharkaas saddexaad oo ku saabsan aqraadu shicri. نشاط 2 نجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية waxaan ka jawaabayn doonaa hadduu ilaa idmo su-aalahan soo socdo si afka ayaan u jawaabi doonaa. xagga afka ayaan ka jawaabi doonaa. xagga afka markuu leeyahay waa marka aan meesha joogno weeye oo ma ahan cashiro guriga laisku weydiinayo oo laisku dirayo oo guriga lala aadayo ma ahan. kow su-aasha koowaad caddi tiri aqraad ashicri alcarabiy shicirka carabiga aqraadkiisa tiri. waa kanaa marka aqraadka shicirka carabiga laga leeyahay waa badan yahay wax la koobi kara ma ahan. intii u muhiimsaneed oo buug noo soo qaaday nala soo qoray ayaan sheegaynaa hadduu ilaahay idmo. aqraadu shicri alcarabiyi kathiiratun minhaa alghazalu waalfakhru waalwasfu waalxikmatu waalrithaa'u waalmadxu waalhijaa. aqraadu shicirka carabiga laga leeyahay waa badan yahay waxaa ka mid ah ghazal wax la yihahdo shukaansi, fakhri faan, alfakhru walwasfu tilmaan, walxikmatu xikmad, walrithaa'u baroor, walmadxu ammaan, walhijaa caay. intaasaa shicirka looga dan leeyahay arrimaha looga dan leeyahay. shicirka muraadkiisa waa intaasba in waxa weye wax lagu shukaansado iyo in laisku ammaano lagu faantamo. fakhriga ammaan waxa weeyaan faan weeye fakhriga laisku faano. wasfi waxa weeyaan tilmaan, xikma waxa xikmad, rithaa baroor, madxi ammaan iyo walhijaa caay. marka fakhriga faankaas iyo madxiga ammaantana waxaa u dhexeeya farqi baa u dhexeeya labadoodaas. hadda fakhru waa faan qof faantamaya weeye, madxina waa ammaan qof la ammaanayo weeye. waxaa u dhexeeya labadooda farqi. number 2 carif tacriifi alghazal shukaansiga tacriifi. shukaansiga tacriifkiisu wuxuu noqonayaa waa kana waa huwa tashabubu binnisaa'i watawadudi ilayhinna. shukaansi waxaa la yihahdaa haweenka oo la isjeclaysiiyo watawadudi ilayhinna iyagoo isjeclaysiiyo gabdhahoo la isjeclaysiiyo oo lala hadlo la sheekaysto waaye hadalla macaan lagu dhaho wanaagsan baa la yihahdaa ghazalka ayuu ku tacriifiyey. وهو التشبب بالنساء والتودد إليهن. صدح وضح معنى الحكمة حكمة معناها عدي وهو كلام صائب يأتي من مجرب متعايش مع الأحداث والوقائع. وكلام توسن وكإيمانيو تجابوين كنولشة من مجرب متعايش تجابوين نولشة تجابوين كيو كإيمانيا وحولي إيمانيا مع الأحداث دعدوين والوقائع دعدوين دعي أيو نولشة تجابوين إيمانيا حكمة أي كل نيساء. وكتعريف كيس عن الحكمة. أفر حدد حدي الفرق فرق حدي بين المدح والرثاء. مدح الرثاء ودحية شيء مركا الرمين لأوجاده وحلو قرطا لبضع شيء مركا لكلا فرق الرمين لأوجاده لو كلا حدد كرا وحل إلى دقيقتان إلا التعريفية. شيء مركا التعريفية شيء كلا وتقرنيسا مركا تعريف كان مركو كتن كلا إنه كسر جيده أيها قرنيسا. مدح واكنا مركا المدح وهو ذكر الصفات الحميدة للممدوح. مدح وحالي هذا صفات كوناكسن أو الوشيغو للممدوح مثل الأمانة مثل الأمانة الوشيغو وهي صفات وناكسن أو لما هذه بالي هذا مدح وأمانة ممدوحنا مثل الأمانة وهي كان وحمانة وحالي هذا مادح يا مدح يا ممدوح. مادح مثل حمانة لهذا مدحنا وحوي أمانتي ممدوحنا مثل الأمانة وهي مركا وحوي مدح تعريف كيسو حنكوشيغنا وهو ذكر الصفات الحميدة للممدوح. أما الرثاء برور أيضا برورت حويا وهو ذكر محاسن الموتى. رثاء برورت حل هذا
وهو ذكر محاسن الموتى dadka dhintay wanaagooda la sheego la xuso ayaa la yiraahdaa risaha marka farqi ku dhaxay waad garatay risaha waxa weeyaan dadka dhintay wanaagyaashooda la tiriyo ayaa la yiraahdaa ayaa ku soo baxay madxina waxa ku soo baxay sifaad wanaagsan oo lagu sheego ruuxa la amaanayo farqigaas u dhaxeeya halkaas uga baxnay nashaa ثلاثة نأتي بما يضاد الكلمات الآتية waxaan la imaanaynaa erayadan soo socda kuwa ka soo horjeeda نأتي بما يضاد الكلمات الآتية الكلمة وإريادي هوستيدا ku qoran jidahana hoosteeda waxa ku qoran kuwa ka soo horjeeday طلوع الشمس waxa ka soo horjeeda غروب الشمس qorraxda dhicitaankeeda المدح amaanti weeye waxa ka soo horjeeda الذم caay الكر rogaal celis ayaa la yiraahdaa shayga lagu rogaal celiyo waxa ka soo horjeedo الفر carar in lagu rogaal celino laga cararo الإقبال ba meesha ku qoran kelimada waxa ka soo horjeeda idbaar jeesasho in la jeesado البخل بخيل waxa ka soo horjeedo السقي deeqsi ayaa ka soo horjeeda الجبن fulaynimo waxa ka soo horjeeda الشجاع geesi waxa ka soo horjeeda وقرت نشاط 4 نذكر ما يرادف الكلمات الآتية halkan waxaan ka sheegi doonaa wax qabadkan afaraad waxaan sheegi doonaa aduu ilaahay idmo xuseynaa erayadan soo socda kuwa muraadifka la ah macnaha la ah macnahooda ayaan sheegi doonaa erigan meesha ku jira macnihiisa kii hor wax ka soo horjeeday الكلمة waxa ku qoran erayo muraadifahana waa macnaheeda erayadaas الفضام فضام waxa weeyaan macnihiisu infisaalu الطفل cunuga ka go'a way can ridaacati ummi lugmada hooyadiisa cunuga lugmada hooyadiisa ka go'a waxa la yiraahdaa الفضام suuratun waxa la yiraahdaa iyadana macnaheeda manzilatun rafiica waa manzila sarreysa yadribu dhaqdhaqaaqaya yatadabdabu dhaqdhaqaaqayo baa la mid ah yatadabdabu dhaqdhaqaaqaya macnaheedu yahay الغزل waa maxay التشبب بالنساء hore soo qaadanay غزلka التشبب بالنساء way macnihiisu نشاط 5 وحقبت كشنات نستعمل الكلمات الآتية في جمل من عندنا erayaan soo socda ayaan isticmaalaynaa waxaan isticmaalaynaa duulay jumlooyin anagu aan dhisnay ayaan isticmaalaynaa ko البخل بخيل البخل بخيلnimadu sayuun way xun tahay jumladaas aan galay البخل waxa marka waxaan ku gelinay eray dhameystiran macna leh البخل sayyi bukhaylnimadu way xun tahay labo الكرم wanaag ayaan jumlaan gelinaynaa karamka الكرم wanaagu min sifaati الإسلام islaamka tilmaamihiisa ayuu ka mid yahay saddex الشجاعة geesinimadu الشجاعة geesinimadu fi qowli الحق hadalka xaq oo lagu hadla bay ahaatay geesinimadu waxay ahaatay hadalka xaq ah oo ku qoosho ku hadashid aadan ka baqin afar duluuc dhalasho ayadana jumla waxaan gelinaynaa faa'iido leh yadkuruni duluucu shamsi sakhran qoraxda dhalashadeeda waxay xasuusinaysaa qoraxda dhalashadeeda sakhri ninkii la oran jiray sakhri gabar waxay ahayd khaansan la oran jiray walaalkeeda sakhri ayaa dhintay marka way barooranaysaayoo shicir ayay u tirinaysaa qoraxda dhalashadeeda marka wuxuu xasuusinayaa sakhri marka ujeedkana waa duluucaas waaye shan quruub baan gelaynaa quruubna ayay eri jumlaan gelinaynaa waadkuruhu waan xusayaabay tiri ninkii la oran jiray sakhri beedka qaybtiisa kale weeye likulli quruubi shamsi qorax dhicitaan kasta waan xusayaabay ku leedahay qorax dhicitaan kastaba waxaan xusayaabay tiri ninka la yiraahdo sakhri ayaan xusayaayo marnaba ma iloobay ayay tiri نشاط 6 نكتب البيت الآتية نثرا بيت كان soo socdo waxaan qoraynaa nathri ahaan baan qoraynaa waa shicir waxa loo qorayaa nathri waa kana فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب wuxuu ku leeyahay waa adigu waxa tahay biir shaacirkii wuxuu u tirinayaa boqor ayuu tirinayaa فإنك adigu shamsun qorax baa tahay boqorow والملوك بقرات كلام كواكب واحد غير يرى بقرات كلا سهر واحد غير يرى هذه لكن قرح وين أيها تايب كلية إذا طلعت قرحتي هذي دلته لم يبدو مموقنيو منهن حقه ذا كوكب حدق واحد يا كم موقنيو هذا مرة صوب هذا صوب موقتي وحن كلا لما أركي بقرات الشيغان كلية هاي سيدا قرحة المركز صار دلته لا أركينين حدقها ولي بحدقه شوغان هذا حدقها ما أنت وي شوغان
waxaa qarinayo qorraxda dhalashadeeda ayaa qarinayo iftiinka ayaa baabi'inayso markaas waxaan ka qaadanaynaa marka xidiguhu inay habeen iyo maalinba ay joogaan oo baabi'inaya iftiinka qorraxda marka qorraxda inta joogto xidiguhu ma muuqanayaan laakiin haddii adigu tagtid xidiguhu waa iska imaanayaan meesha marka haddii adigu ka baxdayna xidiguhu waa iska imaan laakiin hadda inta adigu joogtid boqoradan kale wax ma ahan buu leeyahay marka ujeedkana waxa weeyaan nasrigii waa kana yaquulu wuxuu leeyahay anta shamsun fii duhuurika wa intishaarika wa quwatika waalmuluuku alaakhariina nujuumun sagiiratun wa idaa dalacat ishamsu ikhtafat innujuumu waxaa tahay buu leeyahay qorax baa tahay fii duhuurika muuqashadaada wa intishaarika iyo ballaarnimadaada iyo faafitaankaaga waasicnimadaada iyo quwatka awooddaada waalmuluuku boqorada alaakhariina soo harana nujuumun waa xidigo sagiiratun yar وإذا طلعت الشمس اختفت النجوم قرحت هذه لاتنا حدوه هو إسكا قرسوميانو حدوه أنت مدوغ مقدق الشوغ أي سوى موغنيان بيري لأن الكاسم وبحنا غيبتو عن قالينا وحاويان واقيمين وايه